بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شاعي واكو سلامة يا أدير. وحانو هم بلينا يا وأن آد يا آد ودي رجلنا يا كودي رجلنا شقادة أدايسيد شاعية تيفي ومروا البواء دي برشاد الصوماليات runtii fursad bay ii tahay galabta inaan halkan kugula kulmo waxaan oo ka faa'iideysanahay fursaddaas waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo cambaareeyo falalkii doqonnimada ahaa oo wiigii aan soo dhaafnay ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool arrintii Laascaanood ka dhacday 7 bilood socotay waxa ay masiibo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed waxaa ku dhintay dad aad u tiro badan oo birmageyda waxaa la laayay dadkii duqowda ahaa oo hooyooyinka iyo aabayaasha oo sariiraha saaraa oo boqol jiro ku jiraan waxaa la laayay ilmo saqiir ah oo naaska hooyadood shaqaaya oo sanad jir bila jir ahaa waxaa la laayay culummadii waxaa la laayay gabdhihii oo birmageydada ahaa waxaa la laayay ardaydii waxaa la dumiyey goobihii waxbarashada waxaa la burburiyey isbitaaladii waxaa la burburiyey ceelashii biyaha waxaa la burburiyey korontadii iyo isgaarsiintii waa dagaalkaas wuxuu ahaa mid aan taariikhda Soomaaliya soo marin aan ka dhicin muddadii 30 iyo dhowrka sano ahayd oo dadka Soomaaliya dagaalada qabiil ku dhex maraayeen guud ahaan dagaaladaas oo annagoo ka xun inay dhacaan haddana wixii Laascaanood ka dhacay wax la aqbali kara maahan ugu dambeyntii waxa ka dhacay labadii maalmood oo 3 maalmood aan soo dhaafnay waxay ahayd wax ummadda Soomaaliyeed argagax ku riday amiiradii iyo abwaanadii birmageydadii in lagu laayo shaqada waxa haya oo ka shaqeynaya waa dad anigu mar hore waxaan ku yiri waa doqomo askar ah oo 45 sano leynayay dadka Soomaalida waxa hogaaminaya Muuse Biixi waxaan aaminsanahay inuu yahay shakhsi xayawaan ah aqligiisu aaburan yahay oo ka dhamaaday dilaa oo gacan ku dhiglaa iyo kuwa ku taageeraya asaga aad iyo aad baan wax xunahay waa cambaareynayna waxaanu la qaybsanaynaa dhibta iyo murugada dadka reer Laascaanood waa ka xunahay dhibta ku dhacaysa waxaan filayaa oo aan xaqiijinayaa Laascaano Muuse Biixi iyo eesana ma qabsan karo wallahi inayna qabsanayn bishii May baan tagay 30keedii Laascaanaan joogay ma qabsan kadib Muuse Biixi oo Laascaanood ina kaahino ma qabsan kadaan Laascaanood wallahi ciidanka jooga kama qabsan kadaan laakiin khasaaraha badinaysaan waxaan rabaa inaan dhaho inta xaaladdu halka hadda marayso ha lagu joojiyo Muuse Biixi ka bax ma dhahayno laakiin waxaan rabnaa inaan dhahno SSC dhalinyarada qaatumo iyo jamaahiirta iyo dadka garabka ayaga u ah waa in laga saaraa meesha ay ku jiraan dadka ku soo duulay Laascaano wax la dhowran kara maahan wax la aqbali kara maahan inta inay sii joogaan maahan waxaan baa ku dirayaa dadka reer Puntland oo naf iyo maalba u horay reer SSC inay taageeraan xaqna u lahaa inay taageeraan labada guuto ciidanka oo guutada Commandoosta kor fadhida magaalada Garoowe ee uu hogaamiyay ninka la yiraahdo Jamcaale iyo guutada daraawiishta Puntland ee fadhida madaxtooyada labada waxa laga rabaa Laascaano inay galaan inay Garoowe isku hor fadhiyaan cid ka aqbalaysa male waxaan rabnaa dadka xayawaanka oo soo duulay oo gacan ku dhiglayaasha in laga saaro Gooja Caddo hadday dhimanaysa 300 oo nin waxay ka fiican tahay inay fadhiyaan dadka xayawaanka oo maalin walba dadka birmageydada ku weeraraya madaafiicda waxaan rabaa inaan ubtibaa ku diro dawladda federaalka aan aaminsanahay doorkeeda inay ka seexatay markii saddexaad oo aan ka hadlayo waa nasiib daro Laascaanood waxa ka babanaya calanka Soomaaliga waxaa jooga dadkii Soomaaliyeed oo xorriyadan iyo sharaftan iyo karaamadan dadka Soomaaliyeed harsanayaan dadkii dhiigga u soo qubay baa jooga dadkii mudnaa inta in ka wanaagsan Soomaali xaq ugu lahaa yaa jooga waxaan aaminsanahay dawladda federaalka doorkeeda inayna qaadan qaabka uga hadlaysa iyo siyaabaha uga hadashaana waa layd waa si fudud waay wax la aqbali kara maahan haddii aynan waxba ka qaban karin haddii ayna dadkaanu Soomaali ahayn haddii calanka meesha ka taanso kii Soomaaliyeed ahayn waxaa la rabaa si cad inay u sheegaan laakiin waxaan xaqiijinayaa dadkan waa isku tashadeen Laascaano SNB iyo isaaq ma qabsan karaan kuwa jooga Hargeysa iyo Burcaa Dulban ayaga laftoodu dhib inay gaadho ma rabno laakiin nimanka hogaamiyaasha u ah
oo doqomada oo caqligu ka gubtay oo gacan ku dhiiglayaasha waxaa rabaa dadka Soomaaliyeed tilaabo inay ka qaadaan jamaahiirtu tilaabo inay ka qaado reer SS reer Puntland wax ay dhowran karaan maaha waxaan ku soo gabagabeynayaa mar horena waa iri haddii dagaalkaanu saan ku sii socdo wuu iska bedeli doonaa sida hadda uu yahay wuxuuna aadi doonaa jaha kale oo aan la mahadin waxaan ugu baaqaynaa markaa nimankaas doqomada meesha in la dhaafiyo shaaciga aad baan kugu mahadcelinayaa runtii arrin aad murugo u leh abwaanadii Soomaaliyeed iyo amiiradii Soomaaliyeed dadkii laga xishoon jiray oo birmageedyada ahaa oo iska daa Soomaali muslim iska dhaafe dadka gaalada ah way ka xishoodaan caruurta saqiirka dadka waayeelka dadka uqaasha dadka isimada amiirada abwaanada in la daayo bil aadankana mamnuuc bay ka tahay waa inta uu sameynaya musabixi wax laga aqbali doono iyo wax laga yeeri doono maahan waa lagu la xisaabtamayaa aad iyo aad baan ku salaamayaa wax badan baan rabay inaan dhaho laakiin waan careysana aad baan u careysana waxa dhacaya labada oday oo la dilay labadii maalmood oo la soo dhaafay 30 May baan la joogay laascaanood labadaba waa soo arkay niman Soomaali ah Soomaalinimada ku faana wax garanaya gobonnimada iyo haybada ay u nool yihiin adiyaabisid waayo aragnimada dadkii dhiigga u soo matagay dadka Soomaaliyeed iyo xorriyadooda ay ahaayeen marka in madfac lala dhaco waa doqonnimo waa marka ninkaas waxaan dhihi lahaa musabixi aqligiisu waa aaburan yahay waxa aadamiyay oo waxa waaye waa dhiigyacnimada 40 sano uu ku jira waaye aad baa u mahadsantahay adeer waa ku salaamayaa ilaahay ha ku barakeeyo shaqadaad noo haysan waa kaa mahadcelinaya